hadhuubkaas moogtay maran emptiga isalku madow yahay baad goor u arkaysan isagoo ay ku jiraan caanihii geelo aad iyo aad u cad dahabkii caddaa أنا قعنتي دقم هذا عيدي قشة كينس عيدي قشة كينس ما شفته قعنت هيدا والله بلا وحنا مقلي شيء صعبه بي محلي صعبه هذا اللي قدرك هنا هذا بسم الله بسم الله soo dhawaada saxaabadana daawanaya milgaha badan meesha joogtaan kale waa qori kana waa qori kale waxa ka dhaxeeya dabka iyo udgoon kale iyo daawooyin kale ka dhaxeeya waa ku culaya kadib geela lagu hadiidaya ama lagu nasiyaa loo geliya waa qori la qoray wiil quraara oo farsamo yaqaan oo injineer oo Soomaaliya baa ku farayaystay waxaan la qoray geedka liyaha goosayga lumay laga qoray كل اللي ما هو اللي ده الله يقول يشتري بري يود ميسي إذا إحنا قبل وعلانا ولا قاس وحوط تريانا موقتي عدي قرانا سوي قرانا عدي عن قرانا هذا ولا شرحية هذا كاس موقتي مرن امتيا يسلك سمدوي هاي بتجروا أكثر سوا يكوشلان عنه جيرو عادي عاد ذهب عاد مركا أكون براوش بلاونا يا سواح ونكسن سواح ينوط هاي كنا جرو ونكسن جرو سيدين تاي سون الواد أنا ود ما سنسحبيا هذا هاول سكومنتر هاي يمين هنا هاي من هذا اللي هاول سكومنتر هاي يمين هنا لبي يتوانك ذاك العليا بالعليا هروح هذا ودياله يرجع عسكر يا دك مسارة يا عاوز بلاي كاغا دغيا ميغاك يرهيس هلا ادغونا ما شاء الله geedka aan ku culayo dhowr geed baa lagu culaa ka horta waxa la yiraahdaa kan mareer baa aan ku culayay laan kale ku jirtana jaxshac la yiraahdaa geedka la marwanka waa ama faraadka waa geedka la meegaaga laakiin meegaaga iyo gobku halkan waan ka waayay Kenya aan joogno kama baxan laakiin kuwan qudoodu kama dhacaan de meegaagaas ku daba jiraan waxyaabaha loo culay qoryaha loo marmariyana ragga geela la joogan bal anigu weydiinaya waxay kaga jawaabaan haday moogtay sheegaana filaa xamdade shay waayaan sharaxaad qaybaha dambe ayaan ku darayaa in keena geelanisayna iman culiba baa moogtay qayb ka qaadanaya barnaamijka oo xagga diinta inaga dhirginayo noo faafahinaya laakiin sida qaabka ah loo cabo iyo waxyaabaha loo cabay daawada ka tahay baan rabaa saaka intaan aan afka saarin inay intuso geel waxa la xoogaa waa loo kaadinayaa horubka wala soo yar ordayo xoogaa waa loo yar kaadinayaa baa liiri waa lixdii adigu waa 7 daqiiqada dhiman ama mir dhiman waxa la 7 barka waa horubka la galay loo gulaa marka anigu de reer magaalka warqabaan ahaa anoo dagastaysan iska soo gala marka
لا نيجا زعانة ما أدرسك لسه بتقول سو شد الدنيا هذا صوت عم تلعب اقعد صوت على مين اقعد البل اقعد مقعد على صوت الوضع ها اقعد لي اقعد ماشي مقعد هاس تو صوت اي مقعد يا المالي بالله المالي قلمالي طبق قلمالي طبق قلمالي طبق قلمالي كان يوبني وريه بي وبني هاش وبني يوم حد كوفي وين وبني دول عرته oo wata saasho banay magac ori oo baqaya oo bahal reen magaal go'ay soo qalimaal haneed kuma taqaana ya haneed ya may haneed giya ma taqaana haneed ha may kalarka miya ha waa kalarka hade kan ma taqaana kana haneed liya dibka mis kalarka haneed baliya ma taqaanid ya haneed ma taqaana adu ya balinkan u sheeg soo dhaw أنا هنيد ما أغنى مالهم كسلة هنا ساقلولس haneed xagee taqaana adu ساسا أغنى xagee taqaana ayu su'aal ku weydiinaya weydii waxa la yiri Soomaaliya magaalada uu ama meesha Soomaali degto uu harubkan astaan u yeeshay ya astaanta harubka dhaqanka Soomaaliyeed magaalada uu astaan u yahay astaanta sheeg magaalo magaceeda harubkan harub ما يبدو هنرت wuxuu baleeyay waagi qabdi daar wala مقبدها magaalaas uu yahay astaan ما تقدروا waati gaara ku maray marka harub ma meel suran ma arkay soo meel suran laakiin markaan marinay anoo jijii u socdaan naloo sheegay inuu magaaladan والله سلام يا ريق قبردهاي وسلام سامبو يا مeel suran talo soo qoraan may halkaas laga soo originally ba barti la keenay mataliya wariya ka faa'iidi hadda khaladan moogta iyaga ina saxaya ana hodan xasan oge laakiin markii hore waxaan ka imi meel fog ha qaaradda North America meel fog ba ka timi meel fog qaaradda North America aadiyaad ay waxaan ku weydiinayaa geeli badan baad raacday dhulku ku raaci jirtay صح geeli halka moogta jooga iyo geeli aad raaci jirtay wadankii joogay waxyaabo kala duwan yihiin wallaahi waxyaalo badan bay ku kala duwan yihiin niyahow waxay ku kala duwan yihiin tii hadirta geelina xaggaas geel hawl badan buu ahaa sax marka loo eego kan geel kooro waaweyn meel badan gelgelin baa la yiraahdaa jirtay oo geel markuu buuran yahayna u daran hadduu jiifsado leer geelaasi hashaasi halis ku sugan tahay jiifka laga ilaaliyo geelina waa geel iska hawl yar meel cagaara jooga barwaaqo ku jira iska nabcaysan ragii dhaqan jiray ka iyo kan dheefsiga xaqiisa marka laga hadlo waxay kala duwan yihiin dheefsiga geelana badan hadirto geelana joogno waa tan waa la lisayaa sax magaaladii baa looga imanayaa waxaan ku yiri hadirto waxa lagu leeyahay bishii geelana waxa lagu xisaabtaa inuu $10,000 soo saaro safe gareeyo sax keena xagaasna qarash ba asugu qarash ku gudeelaya lagu leeyahay hadirto waliba sanadadan dambe raashino pasta iyo saliid lagu daray saliid caday marka wax badan buu ku kala duwan yahay sidoo maxaa ku dar lahay maxaa ku dar lahay ragii geela joogay cilmi baan qaadanaynaa arday baan nahay adigu dhulkii baa ka timi dhawaan geel badan baa wadankii jooga waliba gobolka Sool baad tagtaa bal xogaa sharaxaad maadaama kan maanta la joogto kana u tagtay niyow kan isbuuc hadda 3 weyn ka soo maqanay kii gobolka Sool iyo kan waxay ku kala duwan yihiin kan dheeftiisa aad u fara badan caanihii hilibkii dadkana way ka taajireen keenin isagunba hawshi iyo qarashkii wax kasta la gelinayay ستلواد كين وحال أورانيا جوجل السوق سوق دلو كان لكن وقت هالي إسكود صباح ولا مد بعد لسه هذا حالة مد بعد شيء مد بعد شيء تاسي كل دوين البرواقع بيشوفه هل صدق ميو كيري هيك صدق كي النقاني نيجي هذا يروح يجي حالة مد بعد شيء وشالة مد بعد مرة حاسري ورجل مسجدكي لقطة مسي عرق وقاعدة جوجي على مرة أنا هالبان كدرية كان وحديري كأني والله صوت الحستة يا توريزم وحلده والله جوي ما ده كأنه ده ملاه ولا مغلي شري وتي سوار دي شرتي قيب كميدي
cumrigaaga raagaa geel dhalinyarana waa ku tusaa laakiin hadda waxaan u malaynayaa qof kastoo Kenya soo gaadha xitaa haddaan hore u arag xitaa hadduu qaaradda North America ama Yurub ku dhasho wuxuu halka u yimaadaa inuu geelen bal dalxiis ahaan sababtoo ah rag ay hadda ku cusub yihiin baa xitaa nala jooga marka qoliyaha xitaa danaynaya waxaan leenahay waa imaan kartaan soo dhawaada gela hal baan lisanaa gela soolisa malis kartaa ina keena taas way qalanaysaa la yiri hanni qalanaysaa ni qaba harubgal ku yeeltire halka waxa kale كان الله بالله وقيله يجي يا ناسي كده خليك ما بدليني ناسي ودي لكن هذا ودي بيجي مساسه والله ما ودي waxaan kaga duqlinay miyaan arag إله نودة بالله نبي ما دقيقة آمين آمين حسين هذا بحورنا يا إنك أسكيل ملسين أفكر ذيك الدراسة أدونك واحد كو أركسها من كورنيل كوش يا جناية وراني دولتي الصومالية waxaan kicin jiray helicopter marka hadda waxa weydiisana koodhay waxba isbedelay waxba laga bedelay waka geele hal loo xariis baa dambe qoriyo geele wariyaa tanid geelayo loodan baa laga xidhi jiray hasha toodka xagee laga xidhi geelina una hasha gurufka la qaban jiray guruf ligidka saasad oranaysa halka murqad gelinaysa wax la xidhaba hasha waxa jirta mar halka hore la qaban jiray كودي لكن نيو مركا سولغرايا ميا لورج مركا لو تليا هيد ميا نيو مركا غرفك لا قبن جيرين نيو way goy halka odagiye halka ay go'so odagi ciisan ciid halka iga saa gosh هو تبي قريين هيا ما مش صاحبي لو مهتمتين هذه عاد سنة ساعتين waxaan rabaa inaan ama 2 daqiiqo ama 3 daqiiqo idinku soo koobo intaan barnaamijkani waa warbixin waana wacyi gelin ama wax sheeg inaan idin sheego dadka geela daawada ee jecel ee Soomaaliyeed meeksay joogan ee doonaya inay geel dhaqdaan iyo kuwa geela leh Soomaaliya jooga iyo meelaha moogta la halmaala haddaad maqajtay duni casriya la aaday oo loo guuray geelna dunida casriga ah uu la socdaayo uu la mid yahay ragii geela dhaqan jiray geeli way fahmeen intay fahmeen oo waliba si free size u fahmeen bay geeli iyaguna dheefsanayaan isagina dheefsiinayaan waxaad arkaysaa Soomaaliya anigu marka geel raac jiray aan arki jiray ilaa haddana la iga warramay muddo hore ay ugu dambeysay in ninka ciidamayaan ka maqnaa nin baa waxa laga yaabaa 100 halaad buleeyahay kadibna wuxuu raadinayaa gabadh yar oo reerahooda ama ay qaraabo yihiin oo joogta Yurub geeli baa iga raashin beelay oo iga biyo beelay anigu ka masjito oo dhar ma haysto oo wiilka geel raaca waa raran yahay $100 ii soo dirso wala baad arkaysaa waa malab la saaray qof dabeer oran maynee waa malab qof la saaray qofkii uu cuni karin dhabarka u saaran kale geelu wuxuu leeyahay cad iyo caano geelu ma isahaynayaa baa la oran jiray waxay ku itaali jireen ninka geela haya afkiisa inuu caano ugu helo oo uu ku filaado ama ragga geela haya uu ku filaado oo caana ka dhamaan waxyaabaha ugu weyn ee laga bixin jiray ee lagu faani jirayna marka dhiiga go'ay ama nafta go'day dhiiga go'ayaan oo nafta go'day moogta laga yimaado yaradka baa koow ka ahaa marka wax la siinayo dadka ehelka ama saaxiibada ay siinayaan awrka radiga iyo hasha maalka baa ugu weyn waxa laga tigay waxa sax ma tiri jirin wax yar oo iska fudud bay ahaayeen dawladaha geelan iyo ragga laba ka xisaabtama waa geel caanihiisa iyo cadkiisa lagu xisaabtamo geel halkan jooga ee ku xareysan hadeer haruubkan aanu ka lisnay wali la lisay jirkaanka weyn ee la haruubayay lagu lisayo waxa laga sameeyaa geel badan horta maaha waa geel aan 100 gaadhin 100 ma gaadho waxa laga sameeyaa $10,000 oo safe garoowa bishii lagu xisaabtamaa wiil yar oo xoodan oo reer magaalada jooga oo shaqaysta iska leh wuxuu fahmay geel cadkiisa iyo caanihiisa geelasha qaar aan u tagay oo aan muuqaaladooda soo duubay awrta ku jirta waxa laga keenay wadamo fog ay ka mid tahay Pakistan
innaguna waxaynu oran jirnay awrka hebel baa awr qoor wacan oo geel aan ka qorsanaya sanadka waa heeya waxaan ku baraarujin lahaa soo koobay dadka geelasha dhaqday Soomaaliya jooga inay fahmaan geelu dheefta uu leeyahay way fahmaan geelu inuu nasto oo meel fariisiyo inuu ku caana badan yahay oo ku cad badan yahay oo ku caafimaad badan yahay oo ku hawl yar yahay intaad geel iska daba raacdo oo aad noqoto geel nin wato adigu ma wadatay geel nin watade baad moogta laga yaabaa meel cidla inaad raad iyo taqajir lagu dhimato saaxiibayaal geel waa jecelahay sida uu yahayna inaad si ka bedeshaan baan anu jecelahay inaad fahantaan oo aad iyo aad u fahantaan oo sida hadda aad joogtaan adduunyadu way guurtay alla guurtaan baan idinku dhiirigelin lahaa hal qodob kale aan ku dari lahaa dadka doonaya inay geel iibsadaan oo ay geel dhaqdaan oo wadankan aanu joognay Kenya ku dhaqdaan iyo kuwa geelasha leba 170 halaad oo iiba baan idin hayaa oo aan geel aan ahayn 170 halaad oo iiba oo boqolku ay tahay geel sharabaada oo dhalay oo la sharabayo oo jimlad baad ku garanaysaa afka reer magaalkii lagu iibinayo ama gacan maraysa ama shalmada baan idin haynaa xiridiisa haddaad u baahantii waan geenayaa nala soo xiriira aadna u kalkaalaya waxaanu qaladna aadna toosiya waxaanu saxnay idin sheegnaa aad u qalqaata halka nagala socotaan waa gamaan intaanu mar kale kulmayno waxaanu leenahay waryaara geelina ka faanina ku faana oo macnihiisa fahma raga geelalahu waxaan leenahay asalaam iyo waliba gabdhaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh